mid ka mid ah sahmiyayaashii iyo socdaalayaashii ugu weynaa taariikhda dunida kaasoo loo arko kii ugu weynaa ee abid dunida soo mara. Ibnu Battuta waxa uu ahaa aqoon-yahan ahaana socdaale kii ugu weynaa ee taariikhdu xusto. ku dhawaad kala badh cimrigiisa waxa uu ku bixiyay socdaal aad u dheer. sida ay taariikhyahanadu sheegaan, Ibnu Battuta magaciisa waxa uu ahaa Maxamed bin Cabdallah Al-Lawati oo ku magac dheeraa Abu Cabdallah. waxa uuna dhashay 25 February sanadkii 1304. waxa uuna ku dhashay magaalada Tanger oo dhacda Morocco. waxa uuna ka dhashay qoomiyadda Berbiga ee degta qaybo ka mid ah dalalka waqooyiga Afrika. markii uu gaaray da'da 21 sano ayuu go'aansaday inuu u safro Makka si uu u soo xajiyo. safarkiisii xajka waxa uu ku qaatay 16 bilood. waxa uuna go'aansaday inuu uusan ku laaban Morocco uuna bilaabo socdaal dheer uu ku tagayo dhulal badan. Morocco waxa uu ka maqnaa 24 sano. waxa uuna safar ku maray oo cagta mariyay waqooyiga Afrika, bariga Afrika, galbeedka Afrika, bariga dhexe, bartamaha Aasiya, koonfurta Aasiya, koonfur bari Aasiya, Shiinaha iyo koonfurta Yurub. waxa ayna ku qaadatay inuu gaaro dhulkaas muddo 30 sano ah. Ibnu Battuta waa shakhsiga iskaga gudbay min cirifka galbeed ee Timbuktu oo Maali dhacda ilaa cirifka bari ee Shanghai oo Shiinaha ah. sidoo kale waxa uu isaga gudbay min cirifka waqooyi ee jasiiradda Sicily oo Talyaaniga ah. taariikhyahanadu waxa ay xusaan inuu ahaa kii ugu weynaa taariikhda aadamaha inta la og yahay oo ku socdaala dhul intaas leeg. waxa uuna hormuud u yahay baarayaasha ugu socdaalka dheeraa taariikhda. marka la eego dunida casriga ah, waxa uu safar ku maray masaafo dhan 120,000 oo kiiloomitir ama 72,000 oo mayl. waxa ayna dheeyihiin dalalka uu booqday 44 dal oo ay ka mid yihiin kuwa aad u waaweyn. dalkeena Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka uu safarka ku maray Ibnu Battuta, waxayna ahayd saylac goobtii ugu horeysay ee uu cagta soo dhigo. isagoo maalmo kadib safar badda ah uga gudbay dhanka bariga. waxa uuna mar kale cagta soo dhigay cirifka bari ee ugu shisheeya qaaradda Afrika. waxa uu uga sii gudbay isagoo doon ku safraya dhanka badweynta Hindiya oo ugu dambeyntiina waxa uu soo caga dhigtay magaalada Muqdisho oo uu ku tilmaamay dhulkii barbariinta maadaama ay aad ugu ekaayeen muuqaal ahaan. xeebaha Muqdisho ayuu ka baxay isagoona u ruqaansaday dhankaas iyo xeebaha Sawaaxiliga ilaa uu gaaray Mombasa oo uu uga sii gudbay Zanzibar. ugu dambeyntiina safarkiisii qaaradda Afrika waxa uu uga gudbay dhankaas iyo Doofar oo dhacda Cumaan ilaa uu ka sii aaday Aasiyada kale. waxaa laga joogaa 661 sano waqtigii uu safriyay Ibnu Battuta. inta badan safarkiisa waxa uu u isticmaalayay geela iyo gaadiidka badda. waxaa jira in buugaag aad u fara badan laga qoray safarkiisii kaasoo laga soo guuriyay buuggiisii uu kaga hadlayay safarada ee la yiraahdo Rihla. goob walba uu tagay waxa uu kaga waramayaa dhaqankeeda iyo xadaaradii ka jirtay. Ibnu Battuta waxa uu ahaa sahmiye aad caan uga noqday dunida oo ilaa maanta ay daraasayaan taariikhyahanadu kaasoo baaqi ku ah goobaha cilmiga ee dunida. taariikhyahanadu waxa ay sheegaan inuu ku geeriyooday magaaladii uu ku dhashay ee Tanger sanadkii 1369.